Hay'adda TIKA qaybteeda Soomaaliya ayaa deeq ka kooban agab xafiisyeed iyo mid waxbarasho soo gaarsiisay Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Buuhoodle. Agabkan oo ay keeneen mas'uuliyiin ka socota TIKA ayaa lagu wareejiyay munaasabad ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan golaha sare ee jaamacadda, maamulka, macallimiinta iyo qaar ka mid ah haldoorka deegaanka. Hay'adda TIKA iyo si guud shacabka iyo dowladda Turkiga ayaa si guud looga mahad celiyay taageerada ay la garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed iyo doorka qale ay ka qaateen dib u dhiska dalka. Waxaana halkaas si wada jir uga hadlay gudoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika, mas'uuliyiinta ka socotay hay'adda TIKA iyo qaar ka mid ah boardka Jaamacadda Bariga Afrika. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wa aalihi wa sahbihi wa mawaalahu wa bacdu. Maanta waa maalin Arbaca 22 bisha July 2020 iyo kowda bisha Dilxija ee mubaaraga sanadka 1441 waxaan joognaa xaruntii cusbeyd ee Jaamacadda Bariga Afrika magaalada Buuhoodle. waxayna la jooga guddi inooga yimi wafdi inooga yimi xamar oo ka socda hay'adda TIKA ee Turkishka ah. waxayna laga jooga ustaad Maxamed Nuur. waxay munaasabada aynu maanta isugu nimaay tahay inay nagu wareejiyaan agab ay Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Buuhoodle ugu deeqeen hay'adda TIKA. munaasabadan waxay isugu yimi golaha sare ee boardka Jaamacadda Bariga Afrika, maamulka, macallimiinta iyo marti sharaf kale oo runtii agteena qaali ka ayayna la joogta oo maanta munaasabada ka soo qayb gashay. waxaan ku wareejinayaa hadalka waqtigaas ka kooban Maxamed Nuur oo inagu wareejinaya iyo Sheekh Jaamac Soomaali oo xubnihii sare ee boardka jaamacadda ah oo kelmadda mahadnaqa iyo kala wareegga bay noo dhihi doona. barakallahu fiikum. bismillaah. anigoo ku hadlaya magaca hay'adda TIKA qaasatan qaybta u qaabilsan horumarinta Soomaaliya xarunteeda Muqdisho. waxaan wakiil uga ahay hay'adda oo aan codkiisa aan ku hadlayo program coordinator-ka Mr. Ghalib Yilmaz oo ah isuduwaha guud ee xafiiska TIKA ee Soomaaliya. maanta munaasabadan waxaan u joogaa oo wakiil ugu ahay in aan agab isugu jira maxaa la dhahaa kombiyuutaro, birintaro iyo agab oo training oo caafimaad inaan ku wareejiyo Jaamacadda East Africa qaybteeda Buuhoodle. marka arrimahaasaan u imid. kolley guddigan waa ila joogaan oo gudoomiyaha ugu horeeyay iyo boardkii jaamacadda. waajibkeenna wuxuu yahay in aan sii horumarino arrimaha waxbarashada. mashruucan waa mashruuc dowladda Turkiga ee ugu talagaleen inay ku horumariyaan hay-adaha waxbarashada khaasatan heer gobol in kor loo soo qaado yacni capacity-ga jaamacadaha haddii ay tahay dhanka tayeynta agabka jaamacadda iyo waxaa kaloo jiro mashaariic kale oo loogu talagalay in kor loogu qaado tayada dadka maxaa la dhahay macallimiinta iyo sidoo kale qaybaheeda kale ee jaamacadda ay leeyihiin hadday tahay oo xirfadaha kala duwan. marka aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina. aadaan u mahadsantihiin. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. marka hore waxaynu mahadinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicamka faraha badan ee uu inasiiyay islaamnimada ugu horeyso. ثانيا halkan maanta sida uu gudoomiyaha jaamacadda iyo wakiilka hay'adda TIKA ay sheegeen waxay munaasabadani ku saabsan tahay qalab hay'adda TIKA ay ku wareejisay Jaamacadda Bariga Afrika ee faraceeda Buuhoodle. runtii qalabkaas oo baahi weyn jaamacaddu u qabtay. marka hore waxaan leenahay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa hay'adda TIKA iyo wakiilkeeda Maxamed Nuur. waxaan kale u mahad celinaynaa dalka aan walaalaha nahay iyo shacabka Turkiga iyo madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan. maaha runtii sida uu wakiilku sheegay markii ugu horeysay ama maaha ay Soomaaliya wax ugu deeqaan ama ay horumarin ka qayb qaataan. runtii waa ugu mahadnaqaynaa. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aad iyo aad Allah subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa maanta anagoo ku sugan magaalada Buuhoodle soo gaarsiiyeen qalab agab ah
hay-adda tika oo hormuudka ka yahay maxamed nuur. marka alxamdulilah waxaan leenahay horta aad iyo aad ayaa subxaana watacaala ugu mahad celinaynaa. sida khaasatan waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka turkiga iyo dowladda turkigaba iyo madaxweynahooda hogaamiyaha u ah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ku hadlaya codka ama xubin ka mid ah culimada deegaanka waxa aan u mahad celinaynaa marka koobaad deeqdan naga soo gaadhay hay-adda tika. run ahaantii wax kasta oo wadanka Soomaaliya la siiyay wuxuu ka dhigay waxna la siiyay ayaan u qaadanaynaa. tan maantana la siiyay iyo kuwa meelaha kale ee la midka la siiyayba waa waxtar ka soo jeeda walaalaha Turkiga oo ummadda Soomaaliyeed la taray isku mid buu noo yahay. waxaan leenahay barakallahu fiikum. Ibrahim Abdulqaadir Jabaan, Sam News TV, Buuhoodle.